ciidamada xoogga dalka qaybta 27aad ee ka howlgalaha degmada Buluburde ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada Amisom ayaa saakay miino ay ku aaseen ururka argagixisada Al-Shabaab suuqa weyn ee lagu iibiyo xoolaha ayaa waxa fashiliyay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka isagoona kala furfuray waxyaabihii ay soo xireen dhagarqabayaasha Al-Shabaab goobta argagixisada ay qarax ay geliyeen ma ahan goob ay isticmaalaan ciidamada qaybahooda kala duwan taasina waxa ay cadeynaysaa inay rabeen inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee u soo ganacsi tagay suuqa maadaama maanta ay tahay maalinta kaliya ee loo soo ganacsi tago degmada Buluburde loogana imaado tuulooyinka hoos yimaada banduulaha ururka 41aad guutada shanaad qaybta 27aad Maxamed Muumin Cilmi ayaa waxa uu sheegay inay u taagan yihiin inay fashiliyaan qaraxyada Al-Shabaabka ay u soo maleegayaan dadka shacabka tusaale shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Buluburde iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed tusaale u noqon karto oo ah waxa la ogaa jiray mar la arki jiray shacabka Soomaaliyeed oo soo yihiin meelaha ciidamada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dawladnimada Soomaaliyeed ka shaqeeyo iyo ciidamada nabad ilaalinta u joogo wadanka Soomaaliya wadooyinka marayaan iyo xirooyinkooda iyo meelaha qaaska ah inay dhagar ay ku maleegaan laakiin tusaale waxay u tahay shacabka Soomaaliyeed inaan u sheegno meeshay ku ganacsanayeen oo xoolaha iyo hantida ay ku xareysanayeen dhaxdooda inay u geliyeen